arinta bishii January kowdii heshiiskii ka dhacay waxa lagu tilmaamay is-afgarad ka dhacay Addis Ababa ayuu ahaa. Horeyna waan uga hadalnay dadka Soomaaliyeedna aad iyo aad uga hadleen dhalinyarada Soomaaliyeed waliba waa ku hambalyeynaya dareenka ay ka muujiyeen arintaas meel kasto ay joogaan. Haday koonfur joogaan, haday waqooyi joogaan, haday galbeed jiraan iyo hadii ay xuduudaha dalka dibadiisa jiraanba magaca Soomaalinimada iyo Soomaalida in maxaan ku daa arintaas looga wada dhiidhiyay waa noo wada muuqato wada garanayna. Waxaan rabaa kaliya inaan cadeeyo dadka Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya degan aad iyo aad ayaan ugu kalsoonaa inaanay qabin dhulka Soomaaliya qaybo kamid in la bixiyo. Horta waxaan rabaa waxa oo sheekada is-afgaradkaas uu ku saleeyay waa dhul la bixiyay waxa ka sokeeyo dhan waa sifooyin gadaal laga raaciyo wax in lagu khafiifiyo la rabo. waa ijaarana iyo waa ganacsi iyo waa magaciisi iyo waa kan wax ka jira Ilaahay abuur ma jiraan. Dhul lama kireeyo dadku waa ka jira laakiin dhul laga ma heshiyo 20 kiiloomitir xeebta badda cas ka bilaabatay xuduudda Itoobiya xuduud beenaadda Itoobiya gasha waa la kireeyay muxuu ahaay meel ay mandiq ka tahay ama macquul ka tahay ma jirto. dadka waqooyi Soomaaliya degan arintaas inaan raali ka waana nala soo hadlaan dadkooda wax garadka iyo mas'uuliyintooda dhinac bulsho iyo dhinac siyaasadba shacabkana waaban aragnayo jidadka waa kuwa soo baxayo taagan oo hadlayaba. Waxaan rabnaa markaa war dhulka Soomaaliya geeyiga aan leenahay shalay kuwii naga horeeyana ma bixi karin mana bixin annaguna ma bixi karno kuwa naga dambeeyana ma bixi karaan. cid bixi karto xaq u leh 1 mitir oo dhulka Soomaaliya inay bixisaa ma jirto. in laga hadlaaba dambi aba bixintiisa iska daayay in laga hadlo nafsadeedaba muxuu ahaa yaa dambi ah oo suurtagal ahayn. Marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego dhulkaasi nagama baxo nagamana bixi karo hadii la yiraahdo. Waxaan rabaa inaan gooni u soo jeesto marka dowladda Itoobiya marar badan waa sheegnay waan ku celcelinaynaa ismaanaan dooran inaan daris ahaan annaga iyo ayaga isma dooran inaan daris ahaan inta aan dariska ahayn oo Allah uu nagu wada abuuray geeskan Afrikane taariikhdeeni waa la garanayaa iyo wixii soo dhaxmaray qarniga 20aad waxaan isla haynay waxaasi beejkaas waa la dugay Itoobiya Soomaaliya ayadoo intaan ka taag daran ayadoo isticmaar haysto ayadoon xor ahayn oo aan dawlad ahayn ayay dalkan qaadan weyday isku dayday markii ugu horeysay maaha isku daygan taariikhda waa la garanayaa ilaa maxaa badda cas iyo meel u dhow maaha banaadir iyo dhulkan inay Itoobiya taariikh boqortooyinkii hore soo aadeen oo meeshan balcad agteeda meel ah ciidamadeedu lagu jibiyo lagu celiyo dib u noqdeen baday raadinayeen dhul kuma yara Itoobiya dhul waa qabtaa. hadda badda dadkan ilaaha dhulka kala dajiyay sida u kala abuuray fursadaha kala siiyay adduunyadana in badan oo kamida bad ma laha waana wada dhaqantaa waana wada nooshahay waana horumartay dal bad ma laha daraadiisu u hormari waayay la yiraahdo adduunka ma jiro sheekada Itoobiya ma hormari karto bad la'aan wax jira ma ahan adduunyada bad ma wada leh waana nooshahay waana horumartaa waana socotaa. waxa wax ugu sii cajiib badan waxay tahay shirkadda Ethiopia Airlines waxay ka siinayna dhulkana waa qaadanaynaa war dhul iyo maxaan ku raadayay shirkad ganacsigeed meeqa shirkad diyaaradeeda adduunka hore u soo jirtay oo dawladaha waaweyn ay lahaayeen oo baaba'ay oo kala tagay oo khasaaray oo maxaan ku raad xirmay dhul khasaaray wali yaa arkay ama dhul guuray oo meesha ku yiilay inta ka guuray meel kala tagay ama khasaaray oo dhulkan waa faa'iido laga waayo waa lagu khasaaray dhulkii la leeyahay. dhulku waa dhaxaltooyo ab iyo aabe iyo awoow laga soo gaaray waana si ahaanaya annagana waana laga sii shalan dhaxalnay waana laga dhaxlayaa kuwa ka sii dambeeyay sidaas oo kale looga dhaxlayaa. walaalayaal dadka walaalaha Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya degan ee wax garadka indheer garadka awlibo dhul Soomaali leedahay Ethiopian Airlines wala Ethiopian Telecom wala Ethiopian maxaan ku raadayay gerd midna lagu ma bedeli karo dhamaantood la isku daray lagu ma bedeli karo. dhulka annaga iskale
dowladda Ethiopia ee dariska annahay shalan waa ugu baaqnay mar kale waa ugu baaqaynaa Muuse Biixi dhul idin ma sii karo mid kale oo ka dambeeyana idin ma sii karo mid ka horeeyna idin ma soo siin waqti badan yoonu idin kaga dhumin waxaas taariikh hore oo qadiim ah oo dhiig badan iyo maxaan ku raada xumaan badan iyo colaad badan ay nagu soo dhaxmartay waayo dhulkan yaanan sii wadin waxa taariikhdaas yaanan sii wadin aan joojino qarniga 22aad dhul lama kala boobi karo waliba annagoo Afrika ama kala boobi karno hadda ka horna dhulka Soomaaliya sidaan oo kale way soo martay duruufo sidaana mawaaqiftii aan ka qaadanay iyo meeshan ka taagnay waa la ogyahay maantana meeshii iyo meel ka sii xageysaan ka taaganahay متر دولك الصومال تاك دولك الصومالية كمدة إنه بحث ما أقول رالك كمين راني حسن الشيخ محمود اللي يرى تاريخ اللي ولا يقانا دول الصومالية كما قرقر تمو حكمكم الدورتو وحكم الدورسو وحكم دورسن المجران هرانا وما ناس قرقر تمن حدنا كقرقر تمن كونا قد بين الله كهيان لنا إنه كقرقر تمن أو ترى الله نوجم دي بكون دولك الصومالية كقرقر تميان لنا أنت يدونا هلا كذا ماشي يدونا الجوجين إلهي أن كبرينا إن المرك أوروبا ترى النوجود ديبن كوا جيجا سوماليا بط يبري مشوا أنا هذا قرقر جلين كرو أو مصالح الدنيا باور كان جوجيا يحكم كان جوجيا وإحنا بدو كبدل كر أم كل الرياض كر ورحكم نقف نقواهن كرتمنا حكم إله كان إله قاضي ضدك سوماليا ذانا كبعدنا يا كانوا قاضي بقرتوية دحلتوية أو أبهني أو ياشين أي حكم كلاه كمانن إيمان الربيتان كدك الصوماليين كنا مده برينا الربيتان كدك الصوماليين كتجينا صومالي واسداس وراهو يو وحبينا يو أجنبية وطو يو أجنبية كان إسية يو حاجة اللي قطع غيري يو حاجة ولا ليال إثيوبيا إذا ما أقون سكرتو أقون إذا ما هايسو afka waa idin aqoonsan haday idin dhahdana waxba idin ma taro dhulku yaanu idin dhaafin oo yaanu na dhaafin oo sababaha u noqonina oo taariikhda xuna ku gelinina war dhulkan waa dhulkii awoowayaashii ay diideen naag ajnabi ah inay ku umusho ay diideen waay shalay ya inay ku umusho cunug ajnabi ah inta ku dhasho oo wax ku sheegto ayadoo waliba isticmaalka biriga joogay heshiis uu ku joogay oo ay protectorate waxa afka qalad lagu yiraahdo dhulkaana waa idin ilaalinaya ay ahayd waxay doontaba ha ahaatee laakiin hal meel oo amaan kula isticmaalkaas sidaan umba Ethiopia badda u rabtay birigi uu joogay Ingiriisku waqooyiga Soomaaliya sidaan u rabtay Ingiriisku waa diiday dadkan ballanaan ka qaaday heshiisaan la galay waa heshiinay heshiiskii aan galnay dhulkooda inaan badahooda inaan bixiyo kamid ma ahayn raalli ahaado dhulka daaqsinka ee naga baxayna asbaabtu nooga baxay idana waa garanaynaa kuwa Soomaaliya oo tala fiicnayna berigaasna tala ku lahay dhulka baxayna inuu baxo Soomaali tala xumaatay oo masaalix yar yar iyo dana ka dhax aragtay maxaan ku yiraahdaa cadawga ayaa dhulka bixisay berigaasna waa aragnay maanta meesha uu joogo inaan qarniga 22aad mid kala bixino suurtagal ma aha waxaan leeyahay dowladda Ethiopia ee dariska aan nahay daris wanaag wada noolaasho nabad ku wada noolaansho dana wadaag inaan dana wadaagno diyaaran u nahay الدنيا مصالح lagu heshiiya masaalixda inaan ka wada hadalno ku heshiin diyaarna masaalixda aan ku heshiinayna dhulka mid ma aha oo bad ka mid ma aha oo dal iyo dad ka mid ma aha annaga iyo Ethiopia waa la garanayaa xuduudda noo dhaxaysa xuduud rasmi ah ma aha xataa xuduud rasmi ah oo laga heshiiyo xataa ma aha marka ishu ma qadiyad maanta taagan ma aha laakiin waa meeshaas taagantaa taariikhiyeed meeshaas joogtaa adduunyadu waa sii midoobaysaa waa isku sii tagaysaa waa annaga East Africa Community ka mid noqonnay maxaan ku iraahdaa ganacsi iyo masaalixan u galnay laakiin dawladda Soomaaliyaana dalka Soomaaliya la yiraahdo xor ah oo madax banaan oo gob ah ayaan nahay masaalixan isku darsanay masaalixan isku la jirnaa laakiin annaga dalkeena dal Soomaaliya la yiraahdo waa gob waa noo gooni dastuurkeenaan leenahay waxayna dhaqankan ku heshiinay sida u noolaanayna leenahay
masaalixda dhaqaale iyo adduunyada iyo waxna waa isku darsanay sanadkii la soo dhaafay oo East Africa aan ku biirinay 100 qof oo dad ku dhow Soomaaliya ayaa negotiation wada xaajoodkaas ka qayb galay Soomaaliya sidii uga mid noqonay suuqaas oo halkaanay noogu yimaadeen ayagoo 100 qofood ah oo dalalka 7 wadan ee dalka ku jirta suuqaas ay ka wada socdeen oo ay muddo usbuuciyana la joogeen oo wada xaajood dhinac walba aan wada xaajood ka galnay oo aan anagu baxnay oo aan tagnay anagoo 70 qof ah khubaro ah oo dhalinyaro Soomaaliyeed gabdho iyo wiilal bala inta tagnay aan soo xaajoonay oo aan soo joognay muddo dhan aan soo noqon oo hadda heshiiska aan soo saxinay aan soo qaadnay oo shalay khamiista ahayday maxaan ku raada golihii wasiirada oo soo maray oo baarlamaanka hadda in la geeyo oo maxaan ku raada baarlamaanka Soomaaliya oo akhriyo oo gadgadiyo ka doodo oo ka bacdi muxuu ah ansixiyo laga rabo waay wadooyin saas oo la maray adduunyadu leedahay ku wada mucaamisho oo la isku ogaado dhul la iska ma warsado kamid ma aha waxa oo la iska warsado dhul kamid ma aha ninkii xoog wato aan waxa waa xoogayaala waa halkiisa laakiin waxa oo la isugu tago oo laga midoobo oo la waxeeyo dhul kamid ma aha dhulkaygaan leeyahay dhulkaadaad leedahay saan u macaamili karaa waay marka darisna waliba kuma si jirteen waxaan ugu baaqayaa dawladda Ethiopia iyo shacabka Ethiopia dawladda Ethiopia waxaan ugu baaqayaa daris wanaag wax badana naga dhaxeeyo kala guuri mayno kala rarmi mayno hal khiyaar hal xulashaan qabnaa nabad inaan ku wada noolaano yaan qabnaa saaxiibo aan ahaano maxaan ku yiraahdaa wixii dana oo naga wada dhaxeeyo labada dhinacba danno ah aan ka wada shaqeyno dawladda Soomaaliya intaas diyaar u tahay laakiin dadkiina ha khaldinina dawladda waxaan leeyahay dadkiina ha khaldinina ha u sheegina badaan helna iyo Soomaaliya bad ka helna ha u sheegina ma dhacayso shalayna ma dhicin maantana ma dhacayso waqti isaga dhuminina disappointment ama niyad jab ha ku ridina dadka Ethiopia waxaan leeyahay ha khaldamina madaxdiinuna yaana ida khaldina leena madaxdana waxaan leenahay walaalayaal adduunyada sida u dhaqanto waa wada naqaanaa dawladda casri ah adduunyada sida u dhaqanto aan u dhaqano waxa soo haray dadka Soomaaliyeed ninkii jaahilka ahay muxuu yiri cadaabtaba geerida ay lahayd oo hadana dhima lahayn ma balay cadaabi lahayn waa jaahilnimo adduunyada korkeeda la isku cadaabayo aakhira kaliya la isku cadaabayo ilaahay qofku cadaabayo meesha doonaan ku cadaabi karaa ilaahayna ma cadaabe in la soo haweysto maxaa noogu wacan annaga isugu wacan walaalayaal annaga isugu wacan inaan is aqbali weyno inaan maxaan ku iraado is ogolaa weyno ayaa ugu wacan in dhulkeena la soo haweysto Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan aan is aqbalno aan wada hadalno Muuse Biixi usbuuci la soo dhaafay Djibouti aan wada fadhina waa wada hadlaynay runtii wada hadalladaan meel fiican si fiican jaah fiican u socdeen spirit fiican ku wada hadlayn kala duwanaansho waa qabnay kala duwanaanshan qabnay laakiin inaan wada hadli karno is ag fariisan karno maxaan ku iraahdaa aan waxa dhabta ay jira aan ka wada hadli karno miiska soo saari karno mawaaqiftu aan kala joognay wax badan oo kamid ah isbedelay anigu ma dhihin maana laakiin waa rijaal ka qabnaa inaan isbedelo oon midowno oon sunnimaado oon dalka dib isku soo celino waxyaabaha nalalaha weysan wuxuu yiri mogtaa nin baadiye jooga ayaa geel laga dhacay markii geeli la dhacay waa ildhaamay ninkii waa loo soo gurmaday waa loo yimiday dadkii u soo gurmaday nin kamid ah ugu horeeyay wargeel ayaa laga dhacay markaas uu ana laga dhacay waa fiiri ninku marka duubash marada sidoo u duuban yahay ayaa qaab darneed guntiga ka qaab darnaa si fiican uma guntaneen markaas wargeel maada lahay markaas uu ha wuxuu Allah ilaahay nin guntigaaga arkaya geelaaga qabow dhahay sidaad marada u duuban tahay oo u guntan tahay nin arkay ayaa geelaada qabo Soomaaliya maanta dhulkanaga waxa soo haweysanay nin guntigeena arkay waay sida u naalna nin arkay waay marada saan u duubanahay iyo diyaar garow la'aanta naga muuqato iyo kala daadsanaanta naga muuqato iyo sida maxaan ku iraahdaa aan u kala raaracno nin arkaya horta dhulkeena iyo gayigeena yaa soo haweysanay war aan marada si fiican u duuban qarniga 21aad qeyrkeen sidoo u nool yahay aan u noolaano adduunyada sidee u nooshahay maanta iyo sidee u macaamisha aan u macaamilno aan iska dhaafno kala shakiga kala cabsida
xukunka lama boobi karo Soomaali waa aragnay maanta inaan xukun la boobi karin Hargeysa baryahan buuq badda ka taagan laakiin ka hor maxaa ka taagnaa buuq doorasho ka taagnaa halkan xamar magaalada Muqdisho 2021 maxaa ka dhacay iyo 2022 bilowgeedii inta 2021 maxaa ka dhacay wixii ka dhacay dadku isma nacba waa tii aan gacmaha is haysanon is salaamayno maxaan ku raahday isu hambalyeynayno isma nacbeen laakiin doorasho sidaas daraadeed war dalkaani dimuqraadiyadiisa dawladnimadiisa wax nin la carari kara ka weyn nima iska joogaya iyo nima shaati tolanaya iyo nima inta ka dhacay war dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal waxaas yaan la idinku khaldin mar hore diideen oo dhiig badan iyo maxaan ku naf badan iyo hanti badan xoolo badan aad ku bixiseen inaanan nin oona dhihin aniga meesha iska joogayo inaan jooga jeclaaya nin inta yiraahdo inaanu meesha iska joogin qiimaad ku bixiseen waa inay socotay waa la aqbalay ninka aqbali waa in asaa garanayo meeshu aadayo dalkan waa dal dimuqraadi ah doorasho lagu yimaada xukunkiisa iyo taladiisa doorashana looga tagaa siyaasad markay tahay maamul markay tahay magacaabis iyo waxyaabo kale lagu yimaada laakiin siyaasad markay tahay doorasho lagu yimaada doorashana waa looga tagaa nin shaatigiisa tolo kara male nin waa iska joogaya dhig kara malaha sidaas daraadeed in nin haweysto inuu dhulka qaar bixiyo si uu meesha u sii joogo Ethiopiana dhulku uma hayn karto kuwa kale ka waaweyn kuma hayn karaan adduunyadu waa isku tagtay dawladdu waa noo dhisi weyday Soomaa 30 sano waana kala noqon weynay annagoo waana nolol dhisi waa in annaga dhisanayna maanta markii inaan dhisanayno oo aan maxaa ay cadawgiina haystay 16 sano la soo dhaafan iska qaadayno annagina aan isku imaanayno wada hadlayna markii la arkay xeeladkan in loo yimaado waay xeeladaha kale loola imaanay markii inaan garan weyno dawma waan garanaa waana karnaa inaan iska diidno iska celino waan iska celinayna ilaahay idinkiisa Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya la yiraahdo waa mid markii waqtiga ugu dhibka badnaayna xataa kalamaanaan tagin walina kala tagin adduunyada mucaamil iyo dhaqan ay leedahay qawaaniin iyo shuruuc ay leedahay waa ixtiraameynaa kuwa waaweyn adduunka oo powerada waaweyn awoodaha waaweyn adduunka ka tirsan oo qaanuunka caalamiga dhinac maraya ayaan farta ku fiiqaynaa lahayn maya qaanuunka caalamiga ayaan la dhinac marin meelo kale adduunyada meelo kale oo kamid ah annaga markii qaanuunka caalamiga aan lagu dhinac maraayo miyaanan dhihi karin mayaan leenahay shalayna waa dhahnay maantana waa leenahay berrina waa dhahaynaa haddii alla yidhaah nalama dhinac mari karo nalagamana tasha karo dawladaha caalamka ee saaxiibada ah waa ku mahadsan yihiin kuwii Soomaaliya midnimadeeda iyo xuduudaheeda iyo dhulkeeda iyo ilaalintiisa ka hadlay oo garab istaagay aad iyo aad ay u mahadsan waa walaalo jira waa saaxiibo jira kuwa kale aamusan ee meelaha ku gagabanaya waxaan leeyahay walaalayaal ma dhacayso Soomaaliya u baad isku xumaan kartaan cid kale waxba u dal kale dhulka Soomaaliya ma sii kartaan kuma taageeri kartaan habartayna waa runteed aabahayna waa runtiis kuwa leh waxaan leeyahay walaalayaal waxaas ma jiraan dhulkan Soomaaliya iska leh way lahaan jirtay maanta ay leedahay barina way lahaanaysaa waqti isaga dhuminin marka inaad meelaha kala baclabayso kuwa positionka cad Soomaaliya la garab istaagay maalinta ay Soomaaliya taxadiga ku jirtayna taariikhdeena waa xusuusnaa doonaa waana garab istaagi doonaa maalinta muxuu ah iyaguna ay nooga baahdaan garab istaag hadii alla yiraahdo dadka Soomaaliyeed waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga walaalayaal midnimo wada jir walaalnimo is ixtiraam cabsida aan kala qabno meesha ka bixino war waxba iskama bi'inin iskamana bi'i karno waa wada dhalanay dhul aan wada leenahay naga dhaxeeyo dhalashaa naga dhaxayso dhaqan iyo diin iyo wax walba naga dhaxeeyo isma dili karno isma handadi karno dadka waqooyiga marka aan ku celiyay اعترافان ربنا يقولون سوتنا يعني waxa miiska maalin Djibouti waxaan ka hadalnay kamid ah اعتراف rabna waana dhahay annaguna midnimo rabnaan dhan aan ka wada hadalnaa dhan bal midnimada iyo اعترافka bal waliba اعترافka noogu kaadiye adduunyada waa soo sii socotaay midnimada aan ka hadalno
اسمه نعبين اسمه دبسنين اسمه دجالين اسمه قيلين اسمه مبوقين سوى الالتنما أو محان كرا لطيف نما أيان أود هاللين أوداجين إسماعيل عمر جيلانه وحو نقدر صدق وحو نجب إيمجرنا جوجل ونسي فرصة ونسي وربل وضع هلا فرصة نسيان ما مدنا ما أنت إنه محان كرا هذا وحياة قاركود هذا لا قاركود ملها لجو وحياة ما مدنا وضي صوماليات مسؤولة شالينا محو هاي شقة سوقبتي إلى ما أنت أنا دبت تاجن ما علنتو حكم كي إسماعيل عمر إلى ما أنت أنا دبت تاجية ما له شر نوقو قبط دلكيس ما له شر كلام نوقو قبطه ما له عيدا من نص صدر ما له طلنا السيو أنت وانا دبت تاجنا حشمة يقدرين يوحو نجم مدنيا وحوين ونجم مدنيا صوماليا وحنقول رجينا يا خير يقول إن شاء الله آدي أيان كرسونو قمنا ورواس صبحني بو قدك أن كجرنا وكالصبحنا مضحنا صبحنا وحدد بدن أي كعب صنيان ومضحنا صبحنا الناس وردان صبحنا إذا دبي بينه إذا دبي نمجرتي أنا نقول في عن راد سنين محاكو هذا عبسيدنا لقى قبل أنا قد أحدنا عبسيد أسكا قبل قلت جينا نجي ذا جيلنا ونعد آدي وما ستين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.